Tiir birah oo qadiimi ah, mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee soo jiidashada caasimadda Hindiya. Tiirku wuxuu samaysmay 10,000 oo sano ka hor. Laakiin ma dhaxlo. Sida ay macdanta qadiimiga ah u helayeen alloy aan dhaxal lahayn 200 oo sano ka hor waa wax aan la qaranayn. Waxaan qarin doonaa sirta birta aan dhaxalka lahayn ee qadiimka ah. Ruushka, qalqad militari oo ku taala xeebta badda Baltic. La dhisay qarnigii sagaalaad. Dibadda, qoryaha rasaasta waxaa ka ilaaliya xaashiyo birah oo dhumuk weyn leh. Birta waxaa si joogto ah ugu yirta badda iyo roobka. Laakiin birta ma dhaxasho. Inkasta oo ay ku yirto xaalado aad u adag oo birta ah. Caadi ahaan, warqadaha ku yaal alaabada birta ah waxaa lagu sameeyaa inay soo baxaan inta lagu jiro duridda. Waa ka sahlan tahay in la jajabiyo bir adag markii dambe. Qoraalka ku qoran tiirkii Delhi waa been abuur. Waxaa la sameeyay markii dambe. Tiir bir ah oo ku yaal Hindiya iyo qalqadda jiidanka Ruushka ayaa laga sameeyay bir isku mid ah, iyadoo la adeegsanayo teknolojiyad isku mid ah isla waqtigaas. Qarnigii sagaalaad. Taariikhda dhismaha qalqadda ayaa si sax ah loo muujiyay. Waxaa loo qundeeyay tiir birah daada boqolaal iyo baar. Tani waa sirta teknolojiyadda birta aan dhaxalka lahayn ee qadiimka ah.